gabdhahaasoo waxaa u qabtaa in ayaga yacni soo saaraan oo xirfadahooda gaarka ay leeyihiin ayaga ku shaqaystaan oo ayagana wax iskugu taraan hadhowna wax ay ku qabsan karaan. waa lagu gudbi karaa ma jirto fikrad ah gabar wax ma ka gudbi karto nolosha lagu sheegayba gabar balantan waxaa waaye kaleeto gabdhaha inay xirfad bartaan oo fariiqa ka kacaan wax qabsadaan. fursadaha shaqo helista gabdhaha Soomaaliyeed ayaa ah mid aad u kooban marka loo eego tan wiilasha iyadoo loo sababeeyo in gabdhaha Soomaaliyeed marka ay joogaan gudaha Soomaaliya aysan ku dhiiri karin inay qabtaan shaqooyinka qaar sidoo kalena aan loo ogoleen iyagoo aanan helin shaqo abuur iyo ilo dhaqaale ay ku sameeyaan ganacsiyo ay iyaga hal abuurkooda leeyihiin. hase ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay in gabdhaha Soomaaliyeed ay abuuraan hal abuur ganacsi ay iyaga leeyihiin sida goobaha gabdhaha lagu qurxiyo saaluunka iyo sidoo kale bortareedyada iyo goobaha cosmeticska. Hani Xasan Aadan waa milkiilaha goob lagu qurxiyo gabdhaha sidoo kalena gabdhuhu ay ku bartaan qurxinta gabdhaha sida make-upka iyo cilaanka. waxaan ka wareysanay waxyaabaha ku dhaliyay sababta ay u aasaastay goobtan. waa dhawaa Mira Hani Xasan Aadan milkiilaha Hana Beauty Salon waxay ugu dhaliyay waxay tahay soo marka hore waa soo shaqeynayay marka soo shaqeynay dhibaatooyin badan kala kulmaysa waa ogtahay marxaladaha hadda waxay ugu dhaliyay in meel sameysto soo marka aad shaqeynayso lacag ku soo gaarayso marka aad meel furato oo yacni waa lacagta aad leedahay oo wax walba yacni aad ku soo dhacayaan soo intaas ay ugu dhaliyay faadana sameystay xirfadeyda gaarka inay ah ka shaqeey hadda halkan waxaa ka shaqeeya hablo badan sida 6 gabdhood oo kale ay kala shaqeeyaan cilaanka make-upka fooneeyaha soo wax salon dhameystiran faantay gabdho badan ay ka shaqeeyaan alxamdulillah waana haystaa waxaa u qabataa marka gabdhahaasoo waxaa u qabtaa in ayaga yacni soo saaraan oo xirfadahooda gaarka ay leeyihiin ayaga ku shaqaystaan oo ayagana wax iskugu taraan hadhowna wax ay ku qabsan karaan. gabdhaha waxaa ka mid ah sida make-upka fooneeyaha oo kaleete cilaanka oo kaleete yacni waxyaabahaas oo kale badan ay u qaadatay laakiin alxamdulillah maanta waxaan aaminsanahay inaan natiijadeeda ka guul gaaray oo guusheedana aad taaganahay. wuxuu furan yahay bisha labaad haddii dhalinayso oo hadda 15 maraysa dhawaana furay soo ahaay 3 sano ilaa hadda shaqaale soo laakiin hadda ku guuleystay alxamdulillah dugsi sare soo dhameeyay laakiin jaamacad ma gelin sababtoo ah u gal maxay tahay waxaa jeclaystay xirfad gooni ah inaan sameysto soo saasay u dhalisay gabar kasta wax kasta inay qabsan kartaa aaminsanahay soo waxa qabsan karto waxay tahay qofka markuu nafsiid ahaantiisa yacni dhisan yahay oo urjeenay inuu wax qabsado wax sameysto wax kasta inuu sameyn karo aaminsanahay faanta xirfado gaar ah yeeshtaan oo ayaga wax ku qabsadaan hadhowna ay ku guul gaaraan gabar walbana mataqaanaa ayada guul isgaarsiiso ayadoon cid bini aadan garab siinin oo laakiin dadaal nafteeda ay dadaalayso ay guul ku gaarto soo gabar walbo yacni xirfadaha mataqaanaa uu hadda jiro way sameyn kartaa sida cilaanka kale hadday xirfad u lahaato fooneeya hadday xirfad u lahaato yacni wax kasta hadday maanta istiraadado yacni waa qaban kartaa inay qaban kartaa aaminsanay beri kamaan xirfad ay lahaan karto ayadoo wax barashada laga soo tagay wax way qabsan kartaa waxna way baran kartaa ayadoo wax baran karteen wax qabsan kartaa soo maxaa la waxaan marka hore iskuul dhiganay iskuulkay waa ka baxay waa dhameeyay markaan dhameystay xirfadda ay ku dhalatay inaan sameeyo kasoo marka iskuulku jirnay yani xirfadaas way ugu duubneed oo isdhahay marka iskuulka dhameysid xirfadaas gal laakiin jaamacad gal qorsheyga ma haysan jaamacad ma gelin laakiin xirfadda make-upka bilaabay inaan barto make-upka bartay dhawaan ku soo shaqeeyay alxamdulillah wallahi uga leedahay gabar walbo yani dalka wax kasta waa laga samaysan karaa soo qof kasta inuu maanta wax qabsan karo oo yani asaga guul isgaarsiin kara aaminsanahay saas darteed marka waxaa leeyahay gabar walbina wax walba ha qabsato waxaa dhihi lahaa xirfado gaar inay ah barta sida make-upka cilaanka yani xirfad kasta oo mataqaanaa oo samaysan kartaan waxaa leeyahay samaysta si biri ka maalin aad guul ugu gaartaan. Xamdi oo kamid ah shaqaalaha goobta saaluunka ka howlgala ayaa noogu warantay waxyaabuhu ay gabdhuhu u qabtaan. waa mahadsantahay aad u dhawahay magacaygu Xamdi Musaab Samad kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku shaqeysta xirfadda cilaan saarka kana howlgalo salonka Hana Beauty Salon waxyaabaha qaban waxa kamid ah sida cilaanka timaha make-upka wax walba shaqooyinka dumarka loo qabtay xarunta sida ay sheegay waxay ku taalaa iskuuska sayidka waxaan nahay waxa u carbiyaysanaa mar walba heegan ugu jirnaa qancinta hablaha Soomaaliyeed kuwaas oo iskugu jiro waxyaabaha ay rabaan sida cilaanka make-upka ay shay
waxyaabaha dharka oo kale walaa waxyaabaha far badan aan ugu dhaliyay waxyaabaha ugu badan hadda oo hablaha Soomaaliyeed ay ku shaqeystaan waa xifradan hadii haleed cilaanka make-upka iyo waxyaabaha xifrada saloonka waxyaabaha ugu badan baahiyaha Soomaalida ugu badan ay qabaan gabdhahana koow ka tahay والله وسود بيننا حرم بدن شرو ميل والبا wax lagu bartaa sanadka muumilayna qof wax barasho ciriiri ugu jirtiin jita hadii haleed xifrad iyo hadii haleed mid caadiya sidee ku gaari karaan ay ku baran karaan ay waqtood inay bartaan inay xarumaha booqdaan way ku gaari karaan way ku baran karaan qof walbana yani qofka markuu ka soo horjeedo gacantaada wax lagu baray marka media ka daawanayso isku mid maahan waxa dhila gabdhaha guriyaha ku jiro xifradaha u baahan hatta gaana xarumaha hadii haleed ku ugu dhow xarunteena aad u soo dhaweynaysa hadii haleed barasho hadii haleed shaqo ay wax walbo ay u baahan yihiin qancintooda diyaarowna gabar badan ay jiraan oo qanci waayay waxyaabaha dadka ka jira xirfadaha iyo waxaasayto oo ku qancay inay tahriibaan ay saxaraha dib badan ay mutaan maya fikrad qaldan ay aaminsan gabdhahaas waxa dhila dalkiina wax ku tihiin wayna jiraan boosas badan oo niilaga baahan yahay inaad dalkiina ku qabsatiin sida hadda xifradaha anaga heeno kale شال ماشى جوجنين مجوجنين الحمد لله ودن كوه هرمري قبلها هدف لها صوّد بحي وأقوي هاني وحبرتين حفرات برتين ميمد كلي ما هن أقانت يعني بوجي قلن كلي نكورنات أوكي هذا بوجي قلن كأجن برنايو أما أرض جامعة ذها وأما أرض سكول لها وبحفرات هذا أنا بركرتها سيدا هذا أنا جو كلنا قبلها دادينا قبلها أباهن فكرة ده أنا كلين لصيو ديارنا وسود بيننا قرب كذا لقوا جد بكرة ما بجرت فكرة جبر رحمة جد بكرة نلاش اللي جوشي جاب جبر واحد قريها أنا هدي له جبر باكش قيسو وحياها وبدن شقوين حبلها هجاميو tan xifrada hadii la dhahna waa xifrada kaliya dumarka leeyihiin marka waxa leeyahay hormuudkii dalka iyo adduunyada oo dhan baa tihiin hablo shaqaysta oo kaca wax qabsada badana ugu wacyi karnaa maxaa la yiraahdaa dhanka miidiyaha hadda qof wax walba uu la socdaa xarumaha jiro wax lagu barto xarumaha sa gaaraan gabdhaha xifrad ha bartaan sanadkan looma u baahna in xafiis la tagay in shaqo la raadsado gacantaada maxaa la yiraahdaa xifrad ku baran kartaa adaa lagu soo raadinaa sanadkan ina qof raadisido xafiis tagtid oo juhdi waqti ka lumo waxa leeyahay wili waxa way qondaro way sidoo kale waxaan goobta kula kulanay qaar ka mid ah gabdhaha goobta lagu qurxinayay waxay noogu warameen sababta ay halkan u yimaadeen magacayga waxa waaye mulki halkan waxa u imaaday inaan isqurxiyo inaan cilaan marsado meeshaan marar badan imaaday sababta ugu soo laabteen waxa waaye sida quruxda badan igu shaqeeyay iyo maxaa ku raahdaa sida lagu soo dhaweynayo marar badan oo kala warajina inaan imaado والله جوار البجعشة إن أسقر حصو من كلك سقر بناطة نايك مركا سصاو ماذا وحكم ذا إعلانك ميك أبك صنيها تنتا وحدا أي واحد جوار الوقور حيو مشان الوقور بنايا أوكي بلانتين وإنا أسقر حنو بلانتين وحاوي كليتو قبلها إني حرفت برتان ويفريق كعان وحقب صدان وهذا هاي مجري وسامية هل كم حاول ماذا إن إعلان صارتو jaamacadana ka yimaade marka ciilankan waa ku qancay service-kooda aad u fiican yahay maxaa la dhahay marka waana ka helay wallahi ma sha Allah in la isxaqiro ma fiicno ciilan qurux badan waa la saaraysaa u jeedin meeshana waa ka helay aad u jeclahay sababta gabar ah mo gabar in isqurxiso leh loogu talagalay waxyaabaha quruxda ah ka heshid maxaa kamid ciilan saarka kamid maxaa la dhahay hoola gaarko gabdhaha loo qabto sida timaha in loo habeeyo iyo maxaa la dhahay wajiga in loo dhaqo iyo waxyaabo kala badan si kastaba ha ahaatee gabdhaha iyo haweenka oo ah udub dhaxaadka bulshada Soomaaliyeed ayaa u baahan awoodsiin iyo taageero wax ku ool ah si ay ugu dhiiradaan inay xirfado badan soo saaraan uguna adeegaan bulshada